Assalaamu calaykum waa aniga iyo mar kale qadari naftaada asxaabta soo dhawaada insha Allah maanta waxaa rabaa inaan ila wadaago macmacaan aad u fudud haddana macaan badan oo ishcalaa kugu soo bixi doono insha Allah macmacaankan wuxuu ka kooban yahay buskudkan lotuska loo yaqaano waxaa u baahan tahay 2 bacood dheer oo kaliya kadib waxaan soo qabsaday halkan caanaha adagoo whipping creamka loo yaqaano halkaas xabo ayaad u baahan tahay iyo lotuska kariimkiisa baaquligaada soo jiido waxaan ku shubanayaa baaquligeyga koobabka waxa lagu cabirto half koobka kan ku qoran yahay oo sokor ah xataa hadaa rabtid sokorta waad ka yareysan kartaa hadda waxaad ku dul shubayaa oo aad u jeedaan caanihii whipping creamka ahay 3 koob ayaan ku dul shubay markaan 3 koob ku dul shubay wax yar ayaa caanihii iga soo heray inta faranjeerka gelin lahaa intaas ama uu qasaari lahaa dhac ku dul shuble muxuu wax qasaaraya kadib waxaan soo qabsaday makiinadii lagu labaayay doorshada waxaan bilaabayaa hadda inaan qaso anigoonan dheereynin makiinada haddii kale caanaha meel walba ayuu ku faniinayaa marka caanaha ma rabo inuu adeeg iga noqdo biyo biyana uu noqdo hadda waxaan sameynayaa si intaan ayaanba ku dhaafayaa qaandeer ama muxuu ahay spatula aan soo qaadana saas ayaan u dhex marinaa sidaas markaan arko khalaas waaba ii diyaar marka hadda alaabteydii halkan waxaan ku haystaa kareemka lotuska loo yaqaano caagadahaas ayuu ku jiraa waa saxankeygii oo aan saaran lahay macmacaanka aan ku sameyni lahay hadda waxaan sameeyey caanihii ama kariimkii qasnaay ayaan ku shubay saxanka saas ayaan ugu fidiyey kadib waxaan ku dul shubay lotuskii ayaan saas ugu dul shubayaa kadib waxaan bilaabi doonaa in aan buskudkii ku kortixo badanaa buskudka dadka way qooyaan aniga ma rabo inaan qooyo shaqo kaleba maxaan isku gelinayaa kareemka sidaas darteed uma aanan adkeynin si aan buskudka u qooynin hadhow marka wuxuu ku soo baxaa buskudkii kareemkii ayaaba qooy shaqo kale adigoo gelin qaybtii koowaad waa ka baxay hadda qaybtii labaad ayaan saari qaybta labaad markaan saaro insha Allah sidii aan sameeyay qaybtii koowaad qaybtii labaad ilaa iyo qaybtii saddexaad intaas baa socon doonto kadib hadda waxaan marayaa qaybtii labaad bal aan isla aragno way isku soo dhamaatay qaybtii labaad sidaas kareemkaada ugu dul shub toosi يعني waxaa isku dayeysaa buskudka dhan inaad daboosho haddana kareemkii lotuska kor uga shub hadda qaybtii saddexaad ayaan marayaa kadib qaybtii saddexaad waa qaybtii ugu dambeysay saxankaas oo aad u jeedaan waa 2 baco buskud ah qaybtii saddexaad markay ii dhamaatay kareemkii lotuska ahay ayaan saas ugu dul sharaxayaa ama sida adiga u jeceshahay markaan sidaas ugu dul sharaxo waxaan soo qabsaday 2 xabo buskud ah oo kuwii hadaydi aan ka reebtay korkiisa ayaan saas u saaray iyo 1 xabo buskud ah oo aan soo jijibiyay geesaha ayaan saas uga shubayaa soo alaabtan hadda faranjeerka ayaan gelinaynaa markaad arintaada dhan bagato faranjeerka ku tuur 12 saac inuu ku jiro faranjeerka ayaa haboon maxaa yeelay aniga kareemka waan jilciyay si aan buskudka u qooynin laakiin kareemkaada hadii uu intaan ka adag yahay 12 saac ka yar ayaad u baahan tahay haddii uusan ka adkeenne 12 saac inuu ku jiro qasab waaye maasha Allah ish calaa alaabtan hadda faranjeerkii ayaa laga soo bixiyay 12 saac kadib waa kaasa sidaas ayuu 3 dabaq u noqday qurux iyo macaan subscribe